gudoomiye ku-xigeenka guddida ilaalinta hantida qaranka ah ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud ayaa soo jeediyay in la ilaaliyo hantida qaranka waqtiga lagu jiro kala guurka. xildhibaanku maanta qayb ka mid ah saxaafadda kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa soo jeediyay sidoo kale inaan lagu tarkifin hantida qaranka sida ay doonaan siyaasiyiintu. waxaana uu yiri haddana waan ugu celinaynaa hantida qaranka in la ilaaliyo waan lagu takrifalin. madaxweynuhuna dekreetuba ka soo saaray hore waad ogeyd wayna heer gashay waana lagu shaqeeyay. haddana tiiun baan taaganahay inaan lagu takrifalin xoolaha qaranka la ilaaliyo ixtiraamkooda gaarana la siiyo. galay anagu horena waan uga hawlgalay haddana hawshooda waan ku jiraa xitaa hanti dhowrihii maanta u dambeysaan balansanahay miisaaniyadiisii iyo arrimihii isaguna waad aragtay xasaaka xitaa saxaafadda ku jiro inuu shaqeynayo oo barnaamijkii ku daba taagay oo ku jiro. marka insha Allah khayr baa la rajeynayaa. xukuumadda cusubna way soo socotaa xafladii waxaan u maleynayaa 14 bilaamaysaa wixii ka dambeeya dawlad cusub baa dhalan doonta insha Allah oo xukuumad cusub oo waliba kooban sidaan filayo. dhinaca kale waxa uu ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida dabagalka iyo hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud maamul goboleedka Puntland dandansi ay ku hayaan gobolada bariga Somaliland iyo mashaariic ay sheegeen inay ka hirgelinayaan. waxaana uu diray fariin adag. runtii waan arkayay in kulay meeshuna waa degmo weyn oo international waana la iman karaa laakiin waxay ku xidhan tahay dadaalkeena iyo activity-geena ku xidhan tahay saan shacabka u kasbano inagu. waana gaarnay meesha ilaa madaxweynahan hadda la doortay madaxweynahan la doortay baa tagay safar ku soo maray soo arkay mashaariiciisa iyo barnaamijkiisana iyo xukuumaddiisana way ka dheregsantahay mar haddaba isagu indhihiisa ku arkay oo meeshii cagihiisa ku tagay. marka khayr baan rajeynaynaa kulley in la dadaalo oo waxqabad la sameeyana shacabkana loo tago waa muhiim. kulley ma in shacabka mar walba laga warhayo waxqabad la sameeyo oo aanay dhicin marka matalan barnaamij ama hawli jirto in loo tago. laakiin inta ka horeysa Puntland sida darkiisa kaftanka siyaasadda maalin cali xaraare uu ka sheekeynay lahaa Puntland waxay soo dirtaa ciyaaraha kuwan geeska oo kale xageena markay laakiin waxa ka fiican inay markii hore dadka la jaan qaadaan oo u yimaadaan oo wax u keenaan. laakiin markay maqlaan Somaliland baa ama doorasho qabanaysa ama mashruuc wada inay soo cararaan waa laga fiican yahay. innagana mar walba kaarkaygu waxa weeye inaan dadka wax u qabanno dawladdu gaadho aan u hadallo. waana ogtahay Afrila saac mar walba aan waan ka hadalaa gobolada in hawlgal laga sameeyo wax loo qabto. taana xukuumaddu way ku jahaysan tahay insha Allah. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Shiglan shabakada Hadwanaag News magaalada Hargeysa.